wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi caafimaadka dowlad goboleedkaasi Puntland mudane Cabdinaasir Yuusuf Xaaji oo shir jaraa'id ku qabtay Garowe ayaa ka warbixiyay xaaladihii ugu dambeeyay COVID-19 ee maamulkaasi. Cabdinaasir Yuusuf Xaaji ayaa sheegay 24 saacadood ee la soo dhaafay in xanuunkaasi laga helay ilaa 17 qof baaritaan lagu sameeyay. Sidoo kalena waxa uu xaqiijiyay dadkaasi laga helay cudurkaasi COVID-19 ay ku jiraan hal xildhibaan iyo sidoo kale hal wasiir oo ka tirsan maamulkaasi, iyadoo ay xusid mudan tahay in wasiir kale oo laga helay cudurkaasi uu ku sugan yahay gudaha magaaladaasi Garowe. Wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi caafimaadkaasi Puntland oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaciyay dadkaasi halkay kala joogaan Boosaaso oo laga diiwaan gelinayo 5 qof, Qardho iyaduna laga diiwaan gelinayo 5 ruux, Wacyi oo 3 ruux laga diiwaan gelinayo halka Garowe iyo Gaalkacyana laga diiwaan gelinayo hal qof. Tirada guud ahaan ee COVID-19 ee Puntland ayaa maraysa 76 kiis, halka dhimashaduna ay si cagacageynayso 3 sida lagu sheegay warbixintii ugu dambeysay ee wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi caafimaadka uu la wadaagay warbaahinta. Arrintan ayaa muujinaysa inay si weyn uga sii fidayso deegaamada Puntland marba marka ka dambeysa faafitaankan caabuqaasi COVID-19. Waa Xamse Dabaare, Telefishinka Star.